nin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban waa mahmaah Soomaaliyeed balse u taagan hadal runta ku salaysan. Aabba u dhashay dalka Pakistan ayaa intuu noolaa waxaa looga helay qamaar gabadhiisa oo markaasi jirtay 1 sano kadib markii uu iska bixin waayay lacagtii qamaarka oo uu kaga helay ninay wada ciyaareen ciyaarta loo yaqaano turubka. Aabbahan oo awoodi waayay inuu deynta iska bixiyo ayaa kula heshiiyay ninkii qamaarka ka helay inuu siinayo gabadhan yar ee u joogta guriga haddii uu bixin waayo deynta lagu leeyahay. wuuna ka aqbalay ninkii codsiga loo soo jeediyay. ninkii gabadha turubka ku helay ayaa ogolaaday inuu sugo ilaa intii ka qangaarayso gabadhani, balse odaygii ayaa geeriyooday. haddaba ninkii Bakistaaniga ahaa oo lagu magacaabo Haydar ayaa xiriir toos ah la sameeyay hooyada dhashay gabadhan qamaarka lagu helay, wuxuuna ku wargeliyay maadaama waqtigan ay jirto 17 sano in lagu soo wareejiyo gabadhan loona guuriyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Rashiida Cumraani oo iminkan qangaartay iyo hooyadeeda Nuuraani ayaa arrintan lama filaan la yaab ku noqotay, waxayna ninkii kula taliyeen inay siinayaan lacagtii deynta ahaa, balse waa uu ku gacan seeray. wuxuuna wacad ku maray inuu afduubanayo gabadhan Rashiida la yiraahdo, hooyadeedana uu dilayo haddii ay oofin waayaan ballantii ay kala saxiixdeen aabbahooda. odayaal deganaa magaalada Hyderabad oo qisadani ku dhacday la socday ayaa tala ahaan u soo jeediyay iyadoo la raacayo xeer jajabka u yaala dhaqanka dalkaasi Pakistan in gabadhan loo guuriyo wiilka uu dhalay ninkan lagu magacaabo Cabdulqani oo da'diisu tahay 23 sano, maadaama odayga gabadha turubka ku helay uu yahay 65 sano jir. Rashiida Cumraani ayaa codsi u soo jeedisay dhammaan muslimiinta ku nool dunida iyo dawladda Pakistan inay u soo gurmadaan oo ay ka badbaadiyaan guurkan aysan doonaynin. taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Hyderabad Irfan Bhutto oo iminkan gacanta ku haya kiiskan dacwadan ayaa ballan qaaday in dawladda Pakistan ay magangeliyo sii doonto gabadhan dhibanaha ah iyo qoyskeeda, wuxuuna sheegay in dacwadan ay ku soo oogi doonaan Mr. Haydar iyo wiilkiisa Cabdulqani, iyo sidoo kale odayaashii xukumay in gabadhan si dirqi ah loogu guuriyo qof aysan ku qanacsanayn. waa dhacdo la yaab leh oo ka dhacday dalka Pakistan.